dalkan Zambia waxa uu dhacaa bartamaha koonfurta Afrika waxaana ku hareeraysan ilaa 8 wadan. dalkan Zambia ma lahan bad laakiin waxa badeecooyinka ay u kala yimaadaan wadamada ku hareeraysan taas oo loo adeegsado gaadiidka dhulka mara. Cabsalaan Hereeri ayaa la sheekaystay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Zambia Maxamuud Maxamed Xasan oo lagu magacaabo Hiiraan. gudoomiye dadka Soomaalida ee wadanka Zambia ku dhaqan waxa lagu yaqaanaa inay dad ganacsato waxa ugu weyn ay ka shaqeystaan. waxa ugu weyn oo ay ka shaqeystaan ilaa maalintii ilaa hadda waa gaadiidley oo transportka ka shaqeystaan. baabuur bay leeyihiin maadaama wadankan dee wadan badle u salahayn oo wadamo badanna ay ku wareegsan yihiin. Soomaalidu ganacsigooda ugu weyn waa muxuu ahayd waa transportation. laakiin dacwasana hadda waxay bilaabeen Soomaalidu inay galaan dhinaca warshadaha ay Soomaalidu hadda wadankan ku leeyihiin dhowr iyo 10 warshadood oo waaweyn bay gaarayaan. waxay kaloo galeen cabdisalaan oo dhinaca muxuu ahayd petroleumka oo waxay leeyihiin petrol station waaweyn oo aad hadda ku arkatid magaalooyinka weyn markaa arkatid mashaariica aad ku arkatid. warshadahaas waxay soo saaraan markaa warshadahaas waxay isugu jiraan kuwa soo saara galleyda iyo kuwa kaloo yar oo sameeya saliidda cuntada lagu cuno saliidda cuntada ah. waxa sidoo kale aan booqanay xaafadda lagu magacaabo Jaiza oo ku taala magaalada Lusaka ee dalkan Zambia. halkaas waxa aan kula kulannay Soomaali intoodii badan halkan ku dhalatay qaarkood ganacsiyo yar ku haysta. magacayga waxa la yiraahdaa Caashe Yaasiin Ducaale. wadankan Zambia waxaan imid 96 bishii 6 ilaa haddana waxaan ku joogaa nabadgelyo. Soomaalida dhanna nabadgelyo ay ku joogtaa. halkan waa meesha Soomaalidu degan tahay xaafadda Jaiza la yiraahdaa waxayna ka tirsan tahay magaalo madaxda Lusaka. wax dhibaato ah oo aan ku qabnaana ma jirto. magacayga waa Farxiya Abdinuur waxaan ku noolaa dalka Zambia ganacsi baan ku haysanaa. halkaan ku dhashay aabahay halkan iyo hooyada halkan bay isku guursadeen. waxaan nahay dadka halkan Zambia ku nool ku shaqaysanaa oo sharci ku haysanaa aad baan ugu fiicanahay. waa wadan amaan baan joognaa waan fiicanahay qaxooti iyo dad sharciyo leh baan isku jirnaa. Soomaaliya wali ma tagin insha Allah laakiin waan ku tala jirnaa Soomaaliya tago. Soomaalida ganacsigooda ugu weyn dalkan Zambia waxa uu ahaa dhanka gaadiidka laakiin sanadihii dambe waxa soo badanayay ganacsiyo ka duwan kuwii hore inay dalkan ay ku soo kordhiyaan. waxa aan booqanay mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee lagu farsameeyo galleyda oo ay leeyihiin shakhsiyaad Soomaaliyeed. waxa aan booqanay Continental Milling oo lagu farsameeyo galleyda waxana aan kula kulmay mid ka mid ah milkiilayaasha Maxamed Xasan Gudbaaye. marka hore ku soo dhawaada Continental Milling warshadan galleyda waxa la aasaasay sanadku markuu ahay 2015. waxay samaysaa galleyda oo shiidan oo ah sida diyaarka oo dadka localka ay cuni karaan. waxaan soo saarnaa maalintii haddii la shaqeeyo full ilaa 165 tan oo finishka ah. markay soo baxdo warshada saad la socotiin ilaa gadaal ay ka soo bilaabataa ilaa 75 mishiin oo kala duwan oo midba wax ku shaqaleeyayso martaa. markay soo martana finishka intay ku soo dhamaataa 4 qaybood oo intay ka soo baxdaa. markay ka soo baxdo waxay soo baxaysaa qayb ayadoo diyaara oo ah grade 1ki dadku cunayay ayadoo haddana diyaar oo ah grade 2 ayadoo ah kii feedka xoolaha la siinay. ganacsiyada kale ee ka duwan kuwa hore ay u sameyn jireen Soomaalidu waxa ka mid ah in dalkan ay keenaan taayirada ama lugaha gawaarida. waxa sidoo kale goobtiisa aan ku booqday Faarax Dalmar Beeldaaje oo isagu ah madaxa laanta Zambia ee shirkadda Dr. Tires ee ku taala magaalada Lusaka. waxaanu keenaa taayirada iyo bateriga noocyadooda kala duwan. waxaanu deganahay Tanzania, Uganda, Congo, Zambia iyo meesha la yiraahdo Mozambique. waxa sharaf ii ah inaad soo booqataan. taayirada aanu gadno waa noocyadan oo sees kasta ay baabuurta isticmaalaan. celcelis marka la isku daro East Africa, Central Africa waxaanu keenaa taayiro ka badan 2 milyan oo taayir sanadkiiba. dalkan Zambia waxa ay sheegeen Soomaalida ka ganacsata inay ku haystaan nabadgelyo buuxda marka loo eego dalal kale oo ka mid ah Afrika oo iyagu aad loogu dhibaateeyo. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, magaalada Lusaka.